I, Robert Gabriel Mugabe, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe waxa uu ahaa nin caan ah waxaana uu xukunka ka digay isagoo aad u da' oo 90 jir ah wuxuu lahaa qoraayo iyo xikmado marka qaar qosol badan leh wuxuuna dalkiisa ka talinayay muddo ka badan 30 sannadood ninkan waxa uu ahaa ninka ugu aqoonta badan madaxda qaaradda Afrika waxa uu ka baxay ilaa iyo 6 jaamacadood waxaana uu ku hadli jiray luqadaha far badan wargeysyada dalkaas ka soo baxa iyo waliba websaydyada caanka ee dunidu waxay ka qoreen qoraayo xikmad badan leh oo qaarkood qosol badan leeyihiin waxaana wargeyska New Zimbabwe ka soo baxa dalkaas Zimbabwe uu qoray in ka badan 18 xikmadood oo laga soo wariyay Robert Mugabe wuxuu yiri waxaan la hadlayaa dumarka iyagoo la qabo sawirada qurxoon soo dhigaya Facebook wuxuu si raaciyay walaashay weligaa ma aragtay alaab la iibsaday oo haddana la xayeysiinayo Mugabe waa sii socday oo wuxuu yiri haddii dawladuhu make-upka ay mamnuuci lahaayeen caruur badan ma aysan aqoonsan lahayn hooyadood waxaana uu taa ula jeeday in make-upka uu wax badan ka bedelay dumarka oo hooyada markii hore sidii ay ahayd iyo markii ay qaadatay make-upka oo ay marsatay ay kala duwan yihiin waa uu sii hadlay wuxuuna ka hadlay isagoo leh haddii aad rabtid inaad ogaatid dhibaatada ay leedahay halkaxaas mobilkaaga dhammaan heesaha ku jira iska tirtir ama delete garee marka laga reebo hal heestaa mar walba dhageyso ma u heli lahayd wax xiiso ah dhageysiga heestaas macnaha waxuu ka waday haddii mobilkaaga aysan ku jirin heeso kala duwan hal hees oo kaliya ma dhageysan kartid marka wuxuu la jeeday halxaas raggu kuma ekaan karaan sida uu isagu lahaa Mugabe waxa kale uu ka hadlay oo yiri guurku waa wax ragga u macaan guriga ayaad soo gashay cuntadii yaad sugtay waa lagu kariyay waad cuntay kadibna qoftii cuntada ku keentay ayaad haddana weli wax ka sii raadinaysaa macnaha waxa uu ka wada oo yiri haweenka guriga marka ay joogto hawl badan bay qabataa wax badan bay ku samaysaa haddana weli waxbaad ka sii raadinaysaa macnaha Afrika haddaad aragto nin iyo xaaskiis oo guriga banaankiisa fiiskii ku laysanaya hamoodin romantic wax kale ma waa laba qof oo wada fadhiyo oo kaliya macnaha waxa uu leeyahay ha u moodin in wax walba ama laba qof oo kasta oo isqabo oo wada fadhiya ay romantic u wada fadhiyaan wax un baa ka qaldan waxa kale oo Mugabe xilmidiisa ku jira hablaha ka weyn 25 jirka Valentine Day ama maalinta jacaylka uma dabaaldegi karaan sababtu maxuu ku sheegay da'dooda dartiis waxay u dabaaldegi karaan maalinta Women's Day maalinta haweenka macnaha waa dad weynaaday oo dhalinyaro oo soo gudbeen waxa kale uu sheegay ha guursan haweeney garoob ama carmal ah oo ilmo wadata waayo ayuu yiri weli lama arag ciyaar hal gool iyo eber ku bilaabantay mana ciyaar aan la ciyaarinba oo hal gool la sii dhaliyay waa ciyaar bilow ma aha ayuu ka wadaa waxa yiri haddii ay gabar dal kale ku tiraahdo ama gabar dal kale u dhalatay ku dhacdo dhunko si fiican u dhunka ayuu muxuu ku sameeyay wuxuu yiri hay'ad waxaad matalaysaa dalkaaga oo dhan Mugabe waxa kale uu soo qaatay haddii ka warna aad mar walba aroos ka qayb gashid oo aad weligaa tahay qof aan guursan oo single ah wuxuu yiri aba kama duwanid hoolka arooska lagu qabto oo hoolkaas la mid tahay mar walba Robert Mugabe waxa ka hadlay gabdhaha dhashay 1990kii ayuu yiri welina aan la guursan waxaan xusuusinayaa 2020 inay santo jir noqonayaan marka iska sii wata su'aashii nacnacasnimada ah sida halkee ku nooshahay
lambarkaaga yaa ku siiyey lambarkee macnaha waxa uu ka wadaa gabadha waxay ku habboon tahay in ay waqti fiican oo da'deeda ku habboon ay guursato laakiin haddii marba 30 jir ay dhaafto waxay la soo baxda oo ay markaas guursan hadallo aan laaqi ahayn iyo shukaansi aan dhammaad lahayn macnaha haddii ay isguursadaan kalkaaliso iyo dhakhtar maxay iska dhalayaan oo isweydiiyey wuxuu ku jawaabay waxay iska dhalayaan bukaan ayay iska dhalayaan sababtoo labadoodii ayaa midna dhakhtar yahay midna kalkaaliso waxaa soo qaatay guur la-aanta oo ka hadlay haddana xikmad kale ka sameeyey wuxuu yidhi haddaad guursato gabadh dhowr iyo 30 jir ah waxaad ka dhigan tahay adoo joornaalkii saaka soo baxay fiidkii soo iibsaday macnaa joornaal dhacay oo saakay oo dhan dadka soo akhrisanayeen ayaad soo iibsatay fiidkii oo adiga kula cusub taasna waxa uu ku duray haweenka garoobada ah waxaa soo qaatay digniina wuxuu yidhi afrika digniinta keliga ee laga cabsado waa baterilowga qofka wax kale kama warwaro wuxuu ka warwaraa telefoonka inuu bateriga ka dhaco ama baterigu eberka yahay sababtoo ah informationka ama xogta meelaha uu ka raadsada ama looga soo diro oo waxa kaliya ay u soo martaa waa telefoonka marka telefoonka haddii dab ku dhaco qofka waxay ku noqonaysaa walwal waxa uu soo qaatay oo yidhi haddii kaa hor timaado gabar uur leh ha ku qosin sababtaa wuxuu yidhi ayadu uur bay leedahay laakiin adiga ma ogid inaad dhali doontid wuxuu sheegay markaas oo yidhi haddii aad aragto gabadh uur leh ha ku qosnin ee adigu istijaabi marka hore inaad dhalaysad gabdhuu la hadlay mar kale waxau yidhi walaashay inaad nin hantile shukaansato kama dhigna inaad hantiilo tahay xiriirkiina oo dhammaada ayaa xaaladaada ka dhigi kara sidii telefoon start loo diray macnaa markaay saaxiib la tahay nin hantilaah macnaha inay isku wada tiiriso ma aha waxaa dhici karta in xiriirku xumaado kadibna ay gabadhii meel cidlaa ku soo dhacdo waxau yidhi ragga inay asturnaanta jecel yihiin waxaa daliilu ah waxaa la guursan waayey gabdhaha ku soo bandhiga jirkooda baraha bulshada macnaha wuxuu yidhi ragga wuxuu ka wadaa waxay jecel yihiin ragga asturnaanta sababtoo ah haddii aysan jeclayn waxay boobi lahaayeen ama guursan lahayn gabdhaha baraha bulshada iyagoo qaawan soo bandhig haddaad aragto haweeney markii hore sawirro ama muuqaallo baraha bulshada aan soo dhigi jirin oo markii dambe bilowday inay saacad muuqaaladeeda u soo bandhigto waa la soo furay oo weyneed jabsan tahay mahmahaas waxaa laga hayaa ama xikmadahaas waxaa laga hayaa madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe xikmadahaas iyo kuwo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maalmaha soo socda